Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalaha quruxda badan ee ku xiran channelkeena Quruxda Dumar Channel. Maanta waxaan sameynaynaa rotiin kala kacsan insha Allah. Qado qurux badan ayaan kasoo tuuran doonaa. Halkaas waxaa inoogu jira hilibkii, yaanyadii, baamiyihii, shiishidii. Hilibka bacda ayaan hadda ka furanay, miiska ayaan ku jarjaranaynaa insha Allah. Soo dhawaada walaalaha quruxda badan. Nala daawada muuqaalkan ilaa dhamaadka. qaabka uu kusoo bixi doono waad arki doontaan insha Allah. iyo steviskii aan u sameeyey. Weelka ayaan iska leexiyey, hadda hilibka ayaan jarjarayaa. Mindida ayaan soo qaatay dhac. qaab yaryar ayaan u jarjarayaa insha Allah, ama qaab dhexdhexaad ah. Halkaa ayaan ku urursanayaa hilibkii. walaalaha qaaliga waa mahadsantihiin qaabka quruxda badan ee aad noogu xiran tihiin mar walbo. saad ii dhiirigelisiin insha Allah. muuqaalka mar walba ha ka iloobina like-ta, maxaa yeelay like-ta faa'iido badan ayay inoo leedahay. sidoo kale waxay muujinaysaa inaad muuqaalkayga ka hesheen. waxaan soo sameyn doonaa muuqaalo badan insha Allah oo ku saabsan rutiinka ama waxa aan qabto maalintii. soo dhawaada walaalaha quruxda badan mar labaad iyo mar saddexaadba. hilibkeeni ayaan hadda jarjaraynaa. qaabkaas ayaan ku wadeynaa ilaa aan kasoo dhameyno. waana la arki doontiin qaabka aan u sameyn doono insha Allah. walaalaha quruxda badan ee inagu xiran mar walba. hilibkeeni ayaa hadda noo socdo. markaan jarjarano weelkaas ayaan ku urursanaynaa qaab yaroo dhexdhexaado. maasha Allah isla eg ayaan u jarjaranaynaa. hadda waxaan maraynaa gabagabo oo jabkaas ayaa noo dhiman. waan soo kala jarayaa walaalaha qaaliga ah insha Allah. hilibkii hadda waan bogay oo waxaan marayaa gabagabo, waad aragtaan. jabkaas ayaa inoo haray, asna waan kala jaranaynaa oo weelkiisa ayaan dhex ku siinaynaa. next step ee inoo xigi doono, waxaan soo qabsanay hadda basashii. hal xabo basal ayaan ku darsanaynaa. afka iyo gadaal ayaan ka jaray, qolofkii waan ka fiiqay. then waxaan u jarjarayaa qaab warwareeg ah, maxaa yeelay qaabkaas ayaan jeclahay aniga. warwareegaas ayaa ila qurxan oo dookhayga ah. haddii aad rabtana sida kale oo yariiska oo jarjaran kartaa, laakiin ani warwareegan ayaan ku haystaa. saas ayaan kusoo dhameynayaa basashii. jabkii labaad ayaan hadda jaray ilaa ugu dambeyn ee aan kasoo dhameeyo. qaabkaas ayaan u jarjarayaa oo warwareega ah. basasheeni hadda waa inoo dhamaatay. waxaa inoogu xigo baamiyaha ayaan soo jarjarayaa. afka iyo gadaal markii aan ka jaro, qaab yar oo yaryar ayaan ugu soo ridayaa. asigane waan ku dhex jarjarayaa hilibka iyo basasha. baamiyaha markii aan ka baxo waxaa igu xiga yaanyada waa fiiqayaa insha Allah. waan kusoo darayaa iyadana. yaanya fiiqowgeena ayaan hadda bilaabanaynaa. yaanyada qofkii raban waa uu fiiqdaa, qofkii rabana sidaa ku darsada. laakiin badanaa waxaa fiican in la iska fiiqo. haddii aadan fiiqinna waa caadi, oo aniga marna waan fiiqaa marna sideeda ayaan ugu darsadaa. waa no problem. muhiimadda yaanyada waxaa waaye markaa karinayso cuntada in ay zaid u bislaato. hadday yaanyada zaid u bislaato oo marka hore aad biyaha ka yareyso, maba la dareemayo inay qolof leedahay iyo in kale. oo yaanyadii waa isku milmaysaa oo meeshii way ku baabi'aysaa. xitaa haddii aad si fiican yaanyada u kariso, uma baahanayso in aad zaid u jabiso. marka laakiin anaga hadda waa fiiqanaynaa. tii afraad tii shanaad ee hadda ku ridanay. saas ayaan kusoo wadanaynaa yaanyadeena. waa fiiqanaynaa insha Allah. walaalaha qaaliga ah nala socda. waxaan idiin soo duubay muuqaalaad qurux badan. muuqaalo kuwan ka qurux badan waa idiin soo wadaa insha Allah. na dhiirigeliya, ka iloobina muuqaalka inaad like saartaan si uu u gaaro asxaab badan. fikirkiina iyo ra'yigiina qaybta hoose commentiga igu soo reeba. haddii aad jeceshihiin in aan soo badiyo muuqaalada noocan oo kale, ama muuqaalada aad jeclaan lahaydeen inaad soo badiyo, qaybta hoose ee commentiga inoogu reeba insha Allah. asxaabta cusub soo dhawaada channelka, subscribe-ta, like-ta, dhacdhac ku siiya. kuwa hore noola joogo mahadsan yihiin. walaalihii quruxda badan aad u mahadsan tihiin. yaanyadeeni waa inoo socotaa hadda. waxaan maraynaa meel dhexo insha Allah. waa soo wada fiiqaynaa yaanyada. markii aan soo wada fiiqno waan isla wada arki doonaa insha Allah. yaanyada ayada waa yaanyo iska yaryar. badanaa yaanyadan ayaa aan isticmaala aniga. soo dhawaada walaalaha quruxda badan. gabagabo ayaan hadda ku dhownahay oo wax yar ayaa noo haray yaanyadii. saad arkaysaanba xabadii u dambeysay ayaan hadda fiiqaynaa insha Allah. markii aan yaanyada kasoo dhammaano, adeegeeni saas ayuu inoogu soo baxay. waa basal, waa baamiyo, waa hilib iyo yaanyo. saas ayaan usoo jarjarnay. qaabkaas ayaan usoo jarjarnay. hadda intaas ayaan soo diyaarsanay. then maxaa meeshaas ku haysanaa oo naga dhiman waa shiishiidiinii.
shiishideeni ayaan geeska soo saaranay. Intaa kadib waxaan u baahannahay xawaashkaas dabka ayaan la tegayaa. Digsi ayaan kasir ugu soo shubay, waa soo kululeysanayaa. Markii uu soo kululaado kadibna hadda waa la tumayaa raashinka ayaa lagu dari doonaa. Dabka ayuu saaran yahay xawaashka ani ma jecel inaan zaid u gubo, waxaan jeclahay kaliya inuu qajajac noqdo. Weelkan ayaa soo qaatay, bariiskii ayaan ku diyaarsanayaa. Waxaan ku shubanayaa 5 koob oo bariis ah. Bariiska waxaan rabaa inaan biyo la sii dhigto, maxaa yeelay biyaha markii aad la sii dhigto bariiska wuu sii jilcaya oo hadhow biyo badan kaagama baahanayo. Midda kale wuxuu kuu noqonayaa furfur. Bariiska halkaas markii aan ku soo shubo waan soo dhaqayaa. Marka hore 3 mar ayaan dhaqayaa. Kadib markii aan 3 mar dhaqo, mar afaraad biyihii aan ku shubo ayaa biyaha aan la dhigi doono. Marka hore bariiska waa inaad soo nadiifisaa. Bariiskeeni saas ayaan isku dhex gashanaynaa. Dabool ayaan saarayaa oo meel ayaan dhigayaa. Waxaan usoo jeesanay hadda dabkeeni. Digsi ayaan soo saartay, waxaan ku shubayaa saliidda qiyaasta aan u baahanahay ayaan ku cabiranayaa. Markii aan ku cabirto saliidda waxyar markii ay soo kululaato, waxaan ku darsanayaa waxyaalihii ayaan soo diyaarsaday. Waxaan u hormarinayaa basasha ayaa fiican cuntada markasta in lagu bilaabo oo loo hormariyo oo xoogaa qajajac ama gaduud ay noqoto. markaa intaas sameyso waxii kale aad ku darsan lahayd aad ku darsato. Hadda saliid ayaa waxyar noo kululaanayso. waxaan ku bilaabanaynaa basasha saa idinkugu sheegay aniga qaabkaas ayaan u jeclahay. Qofkii rabana hadda yar waa uu u jarjaran karaa. Basasha marka aan ku shubo hilibkii iyo adeegii kale ayaan jag ku siiyey. Saliidda maxaa yeelay xoogaa way soo kululaatay. Hadda waa isdhexgelinayaa. Shiishida markii aan ku shubo isku walaaqayaa si ay si fiican isugu dhexgalaan. Shiishideeni ayaan hadda ku soo shubanaynaa. Saad aragtaan walaalaha qaaligaa soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba. Daawo muuqaalkan ilaa dhamaadka. Haddii aad halkan soo gaartay muuqaalka like saar, commentiga ku qor wixii fikirkaaga iyo ra'yigaaga iyo talo iyo tusaale intaba. Hadda waxaan soo qaadanay cusbadeeni. Cusbada halaas ayaan ku darsanaynaa. Adiga intii kugu filan iyo intii aad jeceshahay ayaad ku darsan kartaa. Maxaa yeelay dadka isku qiyaas ma ahan. Qof walba qiyaas ayuu leeyahay. Dadna waxay jecel yihiin cusbo yar, kuwa cusbo badan, kuwa dhexdhexaad ah. Marka anaga dhexdhexaadkaas ayaan iskaga darsanaynaa. Digsigeena hadda waxyar waa isdhexgelinay. Markii aan isdhexgelinay waa noo soo kululaanayaa. Daboolka ayaan jag ku siinayaa hadda. Markii aan daboolo oo digsiga daboolkiisa aan u dheereeyo, hadda waxaan aadayaa xawaashkii oo soo diyaar noqday oo hadda diyaar u ah in la tumo. Mooyihii ayaan ku soo shubtay. waan soo tumayaa xawaashka. Waad aragtaan xawaashka ayaan soo tumayaa. Markii aan soo tumo oo budo ka soo dhigana waxaan ku dari doonaa digsiga insha Allah. Digsiga ayaan usoo noqday asagoo xoogo kululaaday laakiin weli wax u dhiman yihiin. Waan isyar dhexgelinayaa. Markii aan isyar dhexgeliyo waxaan ku dari doonaa xawaashka, balse waxyar waan daboolanayaa si fiican si uu isku dhexgalo. Walaalaha quruxda badan soo dhawaada. Hadda ayaan xawaashkeena shab ku siisanay. Biyo yar ayaan ku soo daray si aysan meesha ugu dhadhagin. Digsigeena hadda waa noo diyaar. Yaanyada ayada dhan waa ay soo jabtay. Xitaa in la jajabiyo uma baahno, ayada ayaa is jabisay. Laakiin wax yar ayaan qaadada jagjag ku siinayaa. Intaa kadib digsiga waan soo biyeysanaynaa oo waa inoo diyaar. Biyaha qof walba qiyaastiisa asaga ayaa yaqaano. Aniga intaas ayaa qiyaasteeda ah. Waxayna ku xiran tahay cabirka inta bariis aad karsanayso. Daboolka ayaan jag u siiyey. Waxaan soo qaadanay alaabtii aan ku samaysan lahayn basbaas shiinageena. Waxaan ku haysanaa halkaas bocor, raqay, basbaas iyo toon. Waxaan kaloo u baahanahay timir. Hal xabo ayaa igu filan. Hal xabo timir ayaan ka soo qaadanayaa halkaas. Intaas ayaan waxaan ka samaysan doonaa basbaaska iska arag hadda maasha Allah. Ugu horeyn waxaan ku bilaabanaynaa inaan basbaaska habeysano, balse waxaa diyaar inoo noqday digsigii. Halkaas waxaa inoogu jira bariiskii aan biyaha la soo dhiganay. Hadda waa kasoo miiray biyihii. Waa 5 koob. Halkaas ayaan haddana ku shubanaynaa. Bariiska inaa biyaha la dhigto waxay faa'iido u leedahay. Wuxuu noqonayaa bariis furfur ah. Sidoo kale bariiska biyo badan kaagama baahanayo. oo maxaa yeelay cabaar ayuu biyo la yaalay oo bariis jilcay oo wax yar u dhiman yihiin waaye. Marka biyaha waa ka soo meeraysaa kadibna waa ku soo shubaysaa. Hadda qaabkaas ayaan u wadnaa bariiskeeni. Waa inuu yara gabagabo. Markii aan ku dhammeeno waan isdhexgelinaynaa qaandada
si bariiska uu isku raaco isheega si dhan hal qaab u noqdo. Haddii kale waxaa laga yaabaa qudaarta qaarna kor inay marto qaarna inay hoos marto. Marka hadda bariiska waa inoo dhamaaday, waa isdhexgelinaynaa. Markaan si fiican isku dhexgelino daboolkiisa ayaan jag u siinaynaa. Shaqadiisa hadda xoogo waa ka gaabsanaynaa isaga. Waxaa aadaynaa dhinacaas iyo basbaaska. Waxaan soo qaadatay baaquligan, raqaygan ayaan ku shubayaa. Raqayga waxaa la rabaa marka hore aad biyo inaad la dhigto oo isheegay biyahaas uu ku dhiimo oo dheecaan uu ka baxo. Marka hore se isheegay waa in la kala bixiyo raqayga. Biyo ayaan ku shubayaa. Biyo markaan ku shubo wali si fiican ayaan u yara walaaqayaa si uu isheegay dheecaanka dhan ooga baxo oo isheegay waxba iga khasaarin. Markii aan raqayga si fiican isku dhexgeliyo oo xoogo yara miidmiido, gees ayaan u dhiganayaa. Intaan waxaan kala sii diyaarsanayo dhan isheegay ha sii diyaarsamo. Waxaan soo qaatay adeegan. Waxaan ku bilaabanaa marka hore bocorka. Waa soo fiiqayaa dhexdaas iyo qolofka ayaan ka soo fiiqay. Waxaan rabaa inaan jarjaro. Qaab wareeg ayaan u jarjaray oo xoogo kuuskuusan. Hadda waan gabagabo oo waan dhawahay. Jabkaas ayaan marayaa hadda. Hal jab oo kale ayaa ii dhiman. Qaabkaas ayaan usoo jarjarayaa. Walaalaha qaaliga soo dhawaada. Muuqaalkan like saara si uu gaaro asxaab badan. Haddii aad halkan soo gaartay, commentiga ku soo qor waxa aad jeceshahay in aan isheegay in la wadaago muuqaalada nooca jeceshihiin in aan soo badiyo. Waxaan ka soo baxsanaynaa hadda basbaaska iyo toonti. Bocorkii saad aragtaanba waan soo diyaarsanay. Halka waxaa ka soo dhex baxsanaynaa basbaaska iyo toonti. Waxaan soo qaadanaa hadda hal xabo basal ah. Basal yar ayaa kugu filan basbaaska, xitaa jab waa ku darsan kartaa. Qolofka ayaan hadda ka soo fiiqayaa. Markaan qolofka ka soo fiiqo waa soo jarjarayaa basasha. Qaab wareeg ayaan u jarjarayaa sida qaabka bariiska oo kale. Qaabkaas ayaan jeclahay. Haddii aad rabtana hadda dheer waa u jarjaran kartaa. Waa isku halkii oo wax dhiba ma lahan. Hadda qolofka ayaan wali ka fiiqayaa. Waa basal yar. Jabna waa ku darsan kartaa haddii aad rabto. Wareeggeena ayaan u jarjaraynaa. Qaabkaas ayaa hadda basasha u socotaa. Waa basbaas iska hool fudud. Alaabtan hal mar markii la diyaariyo waxaan ku iri hal mar shab lagu siinayaa si ay isku raacdo ay u noqoto basbaaska iska arag. Basbaas shaqo badan ma aha. Alaabtiisa hal mar u diyaari. Dabka saar isku wada shubaa lahaa basbaaska. Ma fahanteen asxaabta? Marka soo dhawaada walaalaha quruxda badan. Basasha hadda waa soo jarjaray, waa kala baxsanaynaa. Waxaa inoogu xigay basbaaskii in la tumo oo isheegay la diyaariyo. Mooye halkaas ayuu ii yaalaa. Waxaan ku soo shubanayaa basbaaska iyo cusbada iyo toonta. Raqaygina waa inoo diyaarsamayaa. Gees ayaan u dhiganay. Basbaaskeenii ayaan had tumanaynaa. Wax yar cusbo ku darso. Basbaas iyo toontaas isku soo garaac. Markii aad isheegay diyaar ka dhigtana hadda waa ku diyaar. Waxaan u soo noqonay digsigeenii. Bariiskeena maasha Allah qaabkaas ayuu ku soo baxay. Hadda dheecaan yar ayaa ku haray. Huuris camal ayuu u baahan yahay. Dabka waa u yara gaabinayaa. Hadda daboolkiisa ayaan jag ku siinayaa. Bariiska waa ii dhow yahay hadda oo waaba diyaar ayaa la dhihi karaa. Digsi kale ayaan soo qaatay. Dabka ayaan u shidanayaa. Digsigii aan ku samaysan lahaa basbaashiniga. Waxaan ku darsanayaa marka hore saliid yar. Basbaaska saliidda lagama badinayo maxaa yeelay wax saliid badan xoogo dhadhanka ay ka xumeynaysaa. Marka qof kasta qiyaastiisa uu jecel yahay ayuu ku darsanayaa. Aniga hadda intaas ayaa u filan. Waxaan ku darsanayaa hadda bocorkii, basashii, waxyaalihii aan soo diyaarsaday oo ugu talagalay ayaan ku darayaa. Basasha ayaan ku bilaabayaa. Bocorka ayaan ku xijinayaa oo hal mar ayaan shab ku siinayaa. Waxa soo haray markii aan bocorka iyo basasha ku shubo waxaan ku darsan doonaa insha Allah timirtii aan soo diyaarsaday. Hal xabo ayaa kugu filan timirtaas. Bocorkeeni basasheena ku shubana hadda. Xabadii timirta ayaan ku dhex ridayaa. Basbaaskan waxaa la dhahaa asiga dhan hal mar ku wada shub. Hal mar ayaa ku wada shubaysaa. Daboolkiisa jag u siinaysaa. Garateen walaalaha qaaliga. Wax yar ayaan is dhexgelinayaa. Alaabtiisa oo idil hadda ayaan ku shubaya. Waxba kale ma reebayo. Cusbadiisa, basbaaskiisa wax oo dhan hal mar ayaa jug lagu siinayaa. Suu iskugu huuro. Waxaa noo diyaar hadda raqaygeenii. Lafaha kama reebeyno. Qofkii raba lafaha wuu ka miiran karaa laakiin aniga hadda lafaha waa ku darsaday. Taas optional waaye haddaa rabto. Caana miir intaa soo qaadataa dheecaanka kaliya ku darsanaysaa. Laakiin aniga hadda lafaha waa ku darsaday. Haddii aad lafaha ku darsatana waa caadi. Dadka isku mid ma aha. Qolaba wax bay jeceshahay. Raqayga hadda iyo macnaa lafiis waan ku darsaday. Basbaaskii ayaan gab ku siinayaa. Biyo yar ayaan ku soo daray basbaaska. Maxaa yeelay meesha wuu ku dhadhagan yahay. Biyaha waa looga soo fujinayaa.
markii aan biyaha ay basbaaska iswitay ku daray waxaa ka dhiman hadda in aan wax yar isdhex geliyo dan cusbadiisa ayaa jab lagu siinayaa digsigan yaa daboolka loo dheereynayaa walaalaha qaaliga soo dhawaada channelkiina waaye ismartiyeenina mar walba soo dhawaada insha Allah walaalaha qaaliga haddaan ku soo noqonay xoogoo isheega uu soo koray laakiin wali waa faanoo la fara kama qodno oo waxaan ku idhi wali waqtiga u dhiman tartiibtiisa ha iska bislaado dabkiisa goonid ayuu saaran yahay wax degdeg ah ma qabo marka soo dhawaada walaalaha quruxda badan bariiskeeni ayaa diyaar noo noqday maasha Allah qaabkaas quruxda badan ayuu ku soo baxay waa soo guraneynaa hadda baaquliga ayaan ku diyaarsanaynaa maasha Allah bariis wuxuu noqday furfur kaale iska arag inaba caadi ahayn oo laga sheekeyn karin saxankaas ayaan ku soo diyaarsanaynaa bariiska walaalaha qaaliga sidaas quruxda badan ee aad u jeedaan ayuu ku soo baxay bariiskeeni isla socod wanaagsan muuqaalka ilaa dhamaadka qaabka aan u soo habeenay iyo naqshada uu ku soo baxay iyo basbaaskeeni qaabka uu ku soo baxay intaba waan idin la wadaagi doonaa insha Allah bariiska qaabkaas ayuu ku soo baxay furfur hal xabo meel ayuu taagan yahay xabad ku dhagan mare maasha Allah ayuu noqday sidan qaabkaas quruxda badan ayuu inoogu soo baxay bariiskeeni basbaaska diyaar ayuu noo noqday waa soo jijibinaa dheecaan yar ayaan u yeelnay oo basbaaska waxa fiican fadhi inuu noqdo halkaas ayaan ku soo diyaarsanaa isla maasha Allah quruxdaas iyo shacnigaas ayuu ku soo baxay bariiskeeni basbaaskeenii qaabkaas ayuu noogu ekaaday qaabkaas ayaan u diyaarsaday hadda maxaa dhiman asxaabta quruxda badan waxaa dhiman in aan dhadhankiisa tijaabino qaabka uu ku soo baxay soo qaadanaya hadda qaando basbaaska ayaan soo qaatay kasir dan bariiska ayaan dhadhaminayaa maasha Allah waa lagama sheekeeyaan qofkii dhadhamiyay ayaa garan kara macaankiisa ila soo tijaabiya idinkana walaalaha qaaliga biyaheena ayaan shubanaynaa haddana dhacdhac soo dhawaada asxaabteena quruxda badan muuqaalkeena qaabkaas quruxda badan ayuu inoogu soo idlaaday fadlan share gareeya si uu gaaro asxaab badan like inoo saara muuqaalka waad mahadsantihiin walaalaha quruxda badan ee ku xiran channelkeena mar walba saad inoo dhiirigelisaan muuqaalkan meel dheer gaarsiiya commentiga inoogu soo qora wixii talo iyo tusaale waad mahadsantihiin walaalaha qaaliga soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba channelkan waa channelkiini u share gareeya asxaabta kale si uga faa'iideystaan walaalaha qaaliga waa mahadsantihiin haddii aad ku cusub tahay fadlan ha ka iloobin channelka inaad subscribe saarto gambaleelka furo wuxuu kaa caawinayaa inuu ku soo dhaco muuqaal walba cusub insha Allah inaan soo geliyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.